habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn iyo ciyaarihii. Madaxweyne Muuse Biixi oo dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in cunaqabatayn iyo dagaal ay ku hayso, balse madaxweyne Farmaajo dhankiisa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay la hadalka Somaliland. jahawareer ayaa ka taagan siyaasadda soo galootiga waddanka Mareykanka iyadoo madaxa furdooyinka uu joojiyay in dambiyo lagu soo ogo dadka sharci darrada ku soo galaya ee caruurta wata. waxa kale oo aanu eegi doonaa magaalada Kampala oo koox da'yar oo qoobka ciyaarka ku wanaagsan ay wacdare ka dhigeen kadib markii ay soo saareen album cusub. waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Hargeysa halkaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland uu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya in ay ku hayso dagaal iyo cunaqabatayn. Muuse Biixi ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu xusayay maalinta 26 Juun. toddobaadkii sano ka dambeeyayna waxay nagu jireen weliba dagaal iyo cunaqabatayn ay ugu dambeysay taa maanta socota oo ah weerar colaadeed oo kala hadlahay iyo inay weliba caalamka waxa lagu caawinayo Somaliland ay yidhaahdaan lama caawin karo. waa ogeeyay wixii hore waxa qoray waraaqaysa wasaaraha Soomaaliya daraatana waxaa soo raacay gobolada Soomaaliya oo dhan qodobada xukunta. dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagoo ka hadlayay arrinta Somaliland munaasabadda 26 Juun awgeed waxa uu ku yiri Twitterkiisa: waxaan caddaynayaa in dowladaydu ay diyaar u tahay in la fuguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo kalsoonida shacabka Somaliland. waa uu sii hadlay oo waxa uu yiri waana in lagu bogsiin karo dareenkooda si wada jir ahna loogu sixi karo qaladaadkii keenay duruufaha maanta jira. dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in 2 xarumood oo uu militarigu horey u lahaan jiray loo diyaarinayo in si ku meel gaar ah loogu sii hayo dadka soo galootiga ah. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay in la joojin doono kala reebista caruurta iyo qoysaskooda tan iyo intii la hirgeliyay sharcigan cusub waxa uu saameeyay in ka badan 2,000 oo caruur ah. Maxamed Xaraare ayaa ka waramaya. qafisyo xiran kama aanay muuqan sawirradii ugu dambeeyay ee ka imaanaya xarumaha lagu hayo carruurta laga reebay waalidkood ee xuduudda Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya hoy ku meel gaar ah oo ku yaala magaalada Tornillo ee gobolka Texas, halkaas oo ay ku sugan yihiin in ka badan 300 oo carruur ah. arrintan ayaa qayb ka ah dadaal lagu rogrogayo isbeddel lagu samaynayo siyaasad si weyn loogu kala qaybsamay. hayeeshee ilaa iyo iminka xaaladdu halkaa ayay taagan tahay. Pentagonku waxa uu diyaarinayaa 2 xarumood oo Texas ku yaal, kuwa oo ay ku noolaan karaan ilaa 20,000 oo carruur ah. waxaanu fidinay taakulayn ma doonayno inaanu dhinaca siyaasadda aan galoon ka hadlo, laakiinse waxaan rabnaa inaanu dadka baahida qaba aanu siino guryo ku meel gaar ah. waa sharci iyo go'aan dowladeed. kadib dacayada lagu weeraray siyaasadda soo galootiga dulqaad la'aanta ee Mareykanka, madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii tegey wax ka beddelay. wuxuu saxiixay amar lagu joojinayo kala reebista carruurta iyo qoysaskooda. si kastaba weli waxaa jira jahawareer ku aadan mustaqbalka. aqalka cad ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdu aysan hayn qarash iyo agab ay ku hayn karto dhammaan qoysaska sida sharci darrada ah ku soo gala xuduudda. xafiiska xeeraalinta ayaa meesha ka saaray debicsanaan. arrinka madaxweynaha wuu caddeeyey. waxaan sii wadi doonnaa maxkamadaynta dadka waaweyn ee halkan sharci darrada ku soo gala. waxaanse ka taxadari doonaa kala reebista carruurta iyo qoysaskooda. waalidiinta haatan iyo horeba looga reebay carruurta ayuuse walbahaarku ku sii kordhayaa. marnaba ma moodaynin in wiilkayga laga kaxayn doono. waxaan moodayey inay hal meelna wada geyn doonaan. waxay igu darnayd markii gabadhayda layga reebay, weliba iyadoo ooynaysa oo ku calaacalaysa inaan wada joogno. maadaama in badan oo ka mid a dadka la xiray ay ka soo jeedaan bartamaha Ameerika, waxaa la sheegayaa inay dad badani iminka doonayaan inay ka tanaasulaan dacwadda magangelyadoonka, iyagoo rajo ka qaba intaa u sahasho inay dib ula midoobaan carruurtooda. faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintaasi iyo warbixinno kaleba waxaad ka heli kartaa
bogayaga bbc.com/somali adiga oo ka geli kara mobilkaaga. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida maanta. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa u xukmisay maamulka Trump xanibaadii dhinaca socdaalka ee lagu bartilmaameedsanayay qaar ka mid ah dalalka muslimiintu ay ku badan yihiin. maxkamadaha hoose ee waddankaasi ayaa sheegay in xanibaadaasi ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn, laakiin maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ka laabatay go'aankaasi Talaadadii. xanibaadda ayaa lagu soo rogay Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen in dadkoodu aanay soo geli karin Mareykanka. madaxweynaha South Sudan iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa lagu soo warramayaa in ay horumar wanaagsan ka sameeyeen kulan ay dhowaan ku yeesheen magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan, balse ma jirto wax caddaynaya inay ku dhow yihiin in ay wada saxiixdaan heshiis kama dambaysa. waxaa la filayaa in akhbaarta dheeraadka ah beri lagu dhawaaqo. dagaalka sokeeye ee South Sudan waxaa ku barakacay in ka badan 4 milyan oo qof. Britain ayaa ku baaqday in la kordhiyo awoodda hay'adda caalamiga ah ee la socota hubka kiimikada ee la yiraahdo OPCW. shirkaas oo ka dhacaya xarunta hay'adda ee magaalada Hague oo la qabanayo maalinta berri ah ayaa Britain iyo xulafadeeda waxa ay doonayaan in hay'addu ay awooddo inay eedda saari karto cid marka hub kiimika la isticmaalo, sidii ka dhacday magaalada Duuma ee waddanka Suuriya bishii Abriil. dad banaanbaxaya ayaa isugu soo ururay furitaanka dacwad maxkamadeed qofkii ugu horreeyay lagu qaadayay ee la xiriirta xatooyada kumanaan caruura oo waddanka Spain laga xaday xilligii General Franco. caruurta ayaa waalidkood looga qaaday sabab dhinaca diinta ama siyaasad ah. Eduardo Fella oo ahaa dhakhtar dumarka ayaa lagu eedeeyay in uu ka qaaday Ines Madrigal hooyadii oo uu siiyey haweeney kale sanadkii 1969. wafdi heer sare ah oo ka socda waddanka Eritrea ayaa gaaray caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa. waa booqasho wax weyn looga bedelayo xiisadda colaadeed ee u dhaxaysa labada waddan ee deriska tan iyo sanadkii 1990. wafdiga waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalex, waxaana garoonka diyaaradaha ku qaabilay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, kaas oo usbuucii tagay ku dhawaaqay inuu si buuxda u aqbalayo go'aankii guddiga xalinta xuduudda. haddaba ahmiyad intee leeg ayay leedahay booqashada? Suhayba Badqas ayaa sharaxaysa. imaanshaha wafdigan Eritrea ee dalka Ethiopia ayaa ah tallaabo muhiim ah oo lagu hagaajinayo xiriirka u dhaxeeya dalalka jaarka ee Geeska Afrika. fariintan maslaxadda ahna waa mid aan horey loo arag, gaar ahaanna iyadoo ay ku dhawaad 30 sano oo ay jireen dagaal iyo in hadalla aan wanaagsanayn la isdhaafsanayay. ku kala qaybsanaanta xuduudda ayaa waxyeeleysay xiriirka labadan dal ee deriska ah, sababtayna dagaal dhulka ah. iyadoo Ethiopia ay la yeelatay xiriir dhow Mareykanka si ay gacan uga siiso dagaalka ka dhanka ah argagixisada, ayay Eritrea noqotay dal la takooro. arrintan ugu weyn ayaa ahayd in Eritrea ka dalbatay Ethiopia in shuruud la'aan ah ay ku ogolaato heshiiskii xuduudaha ee la gaaray 2002 oo ku jiro in ciidamadooda ay kala baxaan magaalada Badme. waxaa muuqanaya in Ethiopia ay doonayso inay ku wareejiso Eritrea dhulka lagu muransan yahay, taa oo ka dhigan in labadan dal ee deriska ah ay qaadayaan dhabihii lagu hagaajin lahaa xiriirkooda. booqashadan wafdigan ayaa imaanaysa kadib markii Addis Ababa lagu weeraray isu soo bax uu ku qayb galay ra'iisul wasaare Abiy, ka oo dadka qaar ay ku macnaayeen in uu ahaa isku daydil. xukuumadda Asmara ayaana ugu horeysay dalkii cambaaraysa weerarkaasi, waxayna muujinaysaa sida ay uga go'an tahay Eritrea inay wanaajiso xiriirka ay la leedahay Addis Ababa, balse sidoo kale waxaa loo arkaa mid ay ku taageerayaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo wajahaya muxaaradka qaarkood ee ku jira dowladdan bahwadaaga ah ee Ethiopia. mahadsan Suhayba oo ka soo warramaysay magaalada Nairobi. dhinaca ciyaaraha haddaynu eegno, Denmark ayaa ku biirtay kooxaha u soo baxay wareegga 16 ee ciyaaraha koobka adduunka ee Ruushka ka socda markii ciyaar barbara ah eber ay ku dhamaatay ay la galeen Faransiiska. waa ciyaartii ugu horeysay ee gool la'aan ku dhamaata tan iyo intii uu bilowday koobka adduunka ee Ruushka. ciyaaraha dambe ee caawana, Lionel Messi iyo kooxdiisa ayaa la kulmi doona Nigeria, halka oo laga doonaya in Argentina ay badiso si ay fursad ugu hesho in ay u gudubto wareegga 16. culays weyn baa la sheegayaa inuu saaran yahay Messi oo aanay u suurtagelin ilaa hadda in uu gool dhaliyo. tababaraha Iran Carlos Queiroz ayaa isna sheegay in Cristiano Ronaldo ay ahayd in garoonka laga saaro ciyaartii hal iyo hal isla galeen kooxda Portugal, waxaana su'aal uu ka keenay sax ahaanshaha qalabka
dib loogu fiiriyo qaladaadka kadib markii muddo la eegayay Ronaldo waxa la siiyay kaarka jaalaha waxaana sidoo kale loo qabsaday baa layidhi inuu ku dhagay ciyaaryahan reer Iiraan Ronaldo oo ku guuldareysto koob kubad gool kulaad ahayd oo ciyaarta loo dhigay waxa ciyaartaasi ku dhamaatay barbardhac Portugal ayaana u soo gudubtay kooxaha u dambeeya 16 Andy Murray ayaa ku guuleystay ciyaartiisii ugu horeysay muddo sanad ku dhow kadib markii uu ka badiyay ciyaaryahanka tenniska Stan Wawrinka ciyaaryahanka Scottishka ah ayaa ciyaarayay tenniskiisii labaad ee ugu adkaa ilaa midkii sanadkii hore ee Wimbledon markaasi oo uu qaliin galay hadda waxay is arki doonaan Kyle Edmund oo ka qaaday ciyaaryahanka koowaad ee Britain magaalada Kampala waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Afrika sida ay aaminsan tahay gabadhan da'da yar ee ka midka kooxaha qoobka ciyaarka ee la yiraahdo Ghetto Kids kooxdan oo Uganda u dhalatay ayaa caan ka noqday markii ay ka qayb qaateen heesaaga Mareykanka ee u dhashay ee French Montana muuqaal aad looga helay Patricia oo 14 jir ayaa BBC-da qaybta cusub ee caruurta ee Afrika waxay ku soo wareejisay magaaladeeda Kampala Hi, my name is Patricia. magacayga waa Patricia waxaan ahay 14 jir halkanna waa magaaladeeda Kampala Kampala is a very beautiful Kampala waa magaalo aad u qurux badan waxaana leenahay cuntooyin dhaqameed kala duwan like traditional food. waa kuwan raashinkeena Yeah, we have more kani waa digaag chicken without the luombo. kanina waa matuuke oo ah moos aad looga jecel yahay Uganda haddana waa waqtigii la cuntayn lahaa It's time for eating. halkan waa suuqa Awinow oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn Uganda waxaadna ka heli kartaa wax walbo sidii raashinka dharka kobaha qaali iyo raqiisba suuqan ayaad ka helaysaa You find it here. Wanja? I'm fine. How are you? Yeah. Meant like tuli nyonya kwa tete funa sukali nga tumutika ne tusindika kakali kusabira oberewo uwangazi I'm just here. I've just been ambuulkan ayaan iibsanayaa aad ayaan uga very helay happy with it. ntijukira nga tuli mu nyumba Nothing which Uganda is known Uganda for. waxay caan ku tahay kooxda Triplets Ghetto Kids oo aan anigu ka mid ahay waxaana nahay koox qobka ciyaarta Thank you Father Lord for the good things you have done for me We have very good transport. Kampala waxay leedahay isgaarsiin aad u wanaagsan waxaad qaadan kartaa mootada loo yaqaano boda boda si aad dhaqso uga baxdo zaxmadda wadooyinka You lost your life for us You died on a cross and you made us happy for life Yes we are happy for life If I could change one thing, haddii aan hal wax ka bedeli lahaa Kampala waxaan rabi lahaa hoggaan wanaagsan oo caruurta caawiya kulligeenba xirfado kala duwan oo noo gaar ah ayaan leenahay kaliya waxaan u baahannahay qofna maalgelisa yes, we need to get good leaders who could invest in our talents. waa tahay balse ugu dambeyntii waxaanu eegaynaa bal muuqaalkan oo aad ku arki doontaan ma ahan taageero koobka kubadda cagta adduunka oo jilbooday oo garoonka soo galay balse waa xayawaanka la yidhaahdo kangaroo oo si aan la filayn u soo dhexgalay garoon kubadda cagta lagu ciyaarayay magaalada Canberra ee dalka Australia laakiin meesha in laga saaro ayaa xoogaa adkaatay bal daawo cajiib wararkan iyo kuwii ugu dambeeyba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogayaga bbc.com/somali inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiinna intaanu mar kale kulmayno habeen wanaagsan Thank you.